wadamada Geeska Afrika maxaa ka taqaanaa Geeska Afrika oo noqday meel ay ku hardamaan quwadaha dunida ugu waaweyn. Ku soo dhawaada barnaamij ku saabsan Geeska Afrika. Geeska Afrika, Alqarnu Afriqi, Horn of Africa waxa la isku dhahaa wadamada Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia iyo Eritrea. Baaxadda dhulka Geeska Afrika waa 2 milyan oo kiiloomitir square waxaana ku nool 100 milyan oo dadyow ah. Dhulka Geeska Afrika waxa ugu baaxad weyn dhulka Soomaalida markii loo fiiriyo deegaan ahaan, waxaana ay qaarkood maanta ku jiraan gacmaha wadamada deriska la ah Soomaaliya. Laakiin dad ahaan mandaqada waxa ugu badan dadka Etoobiyaanka ah. Ethiopia sida rasmiga ahna loo yaqaan Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Ethiopia waa wadan xiran oo aan lahayn wax bada. Wuxuu xuduud la wadaagaa wadamada Djibouti, Suudaan, Eritrea, Soomaaliya iyo Kenya. Ethiopia waxaa mara ilaa 4 webi waxaana ugu weyn webiga Nile. Ethiopia markii hore waxaa loo aqoon jiray Abyssinia, laakiin waxaa lagu bedelay magaca Ethiopia oo macnihiisu yahay wajigii gubtay. Dadka Ethiopia waxa ay ku hadlaan luqado gaaraya 70 ilaa 80 luqadood, laakiin luqadda ugu weyn dalka waa luqadda Amxaarada. Wadankan waxa uu leeyahay kalendar u gooni ah, sanadkoodu waa 13 bilood halka 12 Sebtembarna ay tahay maalinta koowaad ee sanadka. Soomaaliya sida dawliga ahna loo yaqaan Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya xilligii hanti wadaagii horena loo yaqaanay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Soomaaliya waa wadan juqraafi ahaan dhaca labada badood ee Badda Cas iyo Badweynta Indian Ocean. Jihada bari waxa uga teedsan Badweynta India halka waqooyi ay deris kala tahay Jamhuuriyadda Djibouti, galbeed iyo koonfurna wadamada Ethiopia iyo Kenya. Waxaana ay leedahay xadbadeedka ugu dheer qaaradda Afrika. Waxa kala duwan qaabka dhulka Soomaaliya sida buuro, dul iyo bannaan. Soomaaliya xilliyadii hore waxa ay ahayd meelaha ugu muhiimsan ganacsiga caalamka. Dawladihii hore ee caalamka xilli ay ahaayeen badmareennada iyadoo ganacsatada Soomaalida ay dhoofin jireen luubaanta iyo malmasha. Djibouti loona yaqaan Jamhuuriyadda Djibouti waa dal yar oo ku yaala bariga Geeska Afrika. Dalkan waxa uu xad la leeyahay Eritrea, Ethiopia iyo Soomaaliya. Dhanka barina waxa uu xad ka leeyahay gacanka cadmeed iyo Badda Cas. Djibouti waxa soo maamuli jiray beelaha kala duwan sida beelaha Ciise iyo Canfarta. Dalkan waxa soo gumeysay Faransiiska waxaana uu xorriyadiisa qaatay sanadkii 1977. Eritrea waa dal ku yaal bariga Afrika gaar ahaan Badda Cas ilaa gacanka cadmeed. Dalkan waxa uu horay uga tirsanaa dawladda federaalka ah ee Ethiopia waxa uu ka go'ay sanadkii 1991. Dalka Eritrea waxa uu xuduud la leeyahay wadamada Ethiopia, Suudaan iyo Djibouti. Wadankan waa dal sabool ah laakiin wixii ka dambeeyay 1991 ayuu dib u soo kabtay dhaqaalihiisa.